waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dawladdu ay isla xisaabtamayso mas'uuliyadda inay qaadayso wixii dhacay mas'uuliyaddeeda sug mudane ra'iisul wasaare mas'uuliyadda ma iska saaranaysaa aawa dadkii weerarka soo qaado shacabka Soomaaliyeed dhibaateeyo hantida burburiyay meydkoodii aaway dhaawacoodii aaway tiradoodu meeqay ahayd shacabka Soomaaliyeed waxaan u tabino u sheegno ra'iisul wasaare noo sheeg daawadaha ay daawanaya aabihiis uu ku dhintay walaalkiis uu ku dhaawacmay adeerkiis uu ku dhintay eedadiis ay ku dhaawacantay ehelkiisu wax ku soo gaareen dawladda mas'uuliyadda qaadanaysa jawaab ugu ma filna kan gurigiisii uu ku burburay ee madaafiicda lagu garaacay ee ama hoteelka dariska la ahaa ama hoteelka lahaa jawaab ugu ma filna dawladda mas'uuliyadda qaadanaysa in la tusaal loo baahan yahay tusoo taagsiya loo baahan yahay yaana ka dhaxgalina bal hadalkaaga sii wado lama aqbali karo in qof shaqo loo diray gabay uu sababo in wixii dhacay uu dhaco qaaliba adaa ku watay halka ay ugu jooji madana ra'iisul wasaare waxba ay ugu soo dhacay habeenkii dhawaatay markii la dhaayay saxaafadda wariyaasha ha laga fogaado hoteelka waa la burburinaa dhulka la simaa madaafiica lagu garaaca mashabaaba meydkoodii iyo dhaawacoodii loo bixinay iyo kuwii noolaayo meesha xabadda ka riday daqiiqada ka bacdi xabaddu waa joogsatay timir lafa ku jirta ra'iisul wasaare adaa ku watay bal hadalkaaga sii wado waxaan rabaa oo kale inaan halkan dadka Soomaaliyeed uga sheego una ballan qaado in ay dawladdu ay isla xisaabtamayso dawladdu waa isla xisaabtamaysaa dadkii waxa weeye shaqada lahaa waa la xisaabtami doona maxaa dawladdu ay tallaabo uga qaadi weysay dadkii shaqadan lahaa waa yeelaynaa waa samaynaynaa leema wadaynaa idinkoo dagaal diyaar u ahaana waxaad tirahdeen waa dagaalamaynaa oo shabaab aan la dagaalamaynaa ayagiina weerar soo qaado shacabka Soomaaliyeed xasuuqay waa mid shacabka Soomaaliyeed dhibaatada u keentay wasaaradda cadaaladda social media waxa ay doonaysaa shacabka Soomaaliyeed inay barto in madaxda la xisaabtamo maali ilaahay keeno tacsida la soo hortaagan iyo cambaarta wasaaradda cadaaladda social media waxa ay doonaysaa shacabka Soomaaliyeed inay barto Cabdulla xarunta Marwe waa albaabka farxadda lamaanaha fadhi ma yaal heetii alla waa gaar dadaalna waa mahuraane xarunta Marwe waxa aad ka helaysaa daweyn baaritaan iyo aqoon la isku haleyn karo dhaqaatiirtuna waa Soomaali kaana tageen oo mar walba kula jooga dalka dadkayga yaaba wax bartay ajnabi xaan ka jira si aad u hesho ubadkii aad u baahnayd insha Allah hadda la xiriir Marwe Fertility Center oo ku taala degmada shabaabnimada in la dagaali karo shacabku ay la dagaali karaan la radi karo maali ilaahay keeno wax daboolan ma tabi karno idinkana qaladeedi ku tahay inaa shacabka Soomaaliyeed wax daboolan la soo hor istaagtaan war Soomaaliyeed bal idinkuna aragtiina commentiga nagu la wadaaga muuqaalkaana sii share gareeya oo lay gareeyo si uu gaaro shacab badan ay qof ku nool qaaradaha Ameerika iyo Yurub ma ku dhiban tahay faylalka dhaadheer ee xawaaladaha haddaba intaas oo dhan waxa ka xaqabtiraya application-ka Payc oo ah adeeg ku suurtagelinaya inaad lacag u dirto family-gaaga iyo asxaabtaada adigoo ku sugan gurigaaga goobtaada shaqada